cabdiraxmaan bin mucaawiya bin haashim bin cabdilmelik cabdiraxmaan daakhil waxa uu ka mid ahaa dadkii reer bani umaya ee ka haray xasuuqii ay u geysteen cabaasiyiintu markii ay xukunka kala wareegeen bani umaya. cabdiraxmaan daakhil waxa uu u soo cararay magaalada khayrawaan ee ka tirsan waddanka tuunis. markuu imanayay magaalada khayrawaan waxa uu jiray 19 sanno, wuxuuna arkay inay ku jirto waddamada laysku yidhaahdo North Africa kacdoon looga soo horjeedo markaas nin ka talinayay oo la yidhaahdo cabdiraxmaan xabiib, waxaanuu ahaa nin cadaawad weyn u haya bani umaya. cabdiraxmaan daakhil waxa uu isku dayay inuu ka faa'iidaysto kacdoonka looga soo horjeedo ninkan ka talinaya meesha, waxaanuu arkay inay Andalus tahay meesha ugu habboon ee uu ku xaqiijin karo himiladiisa uu hiigsanayo oo ah inuu yeelo mar labaad dowlad ay u talinayaan bani umaya. si haddaba ay ugu suurto gasho hirgelinta himiladiisa, waxa uu ku tallaabsaday inuu sameeyo qodobadan soo socda. wuxuu u diray waddanka Andalus in ay safarka rafiiq u ahaayeen oo la oran jiray Beder, muhiimadiisuna ay noqonayso inuu soo sahaamiyo xaaladda Andalus, soona ogaado dadka saamaynta weyn ku leh bulshada ku dhaqan Andalus, iyo weliba inuu soo ogaado dadka fikradahooda iyo waxay aaminsan yihiin. qodobka labaad, waxa uu si toos ah ula xiriiray isagoo u sharaxaya yoolka uu hiigsanayo qof kasta oo jecel dowladdii bani umaya ee ku nool gudaha Andalus. qodobka saddexaad uu sameeyeyna waxa uu xiriir dhow la sameeyey qabiilooyinka la yidhaahdo barbarka, isagoo u sheegaya yoolka uu hiigsanayo oo ah inuu dhiso dowlad bani umaya u taliyaan. waxaanuu ogaaday inay aad u jecel yihiin xukunkii bani umaya, haddana ay diyaar u yihiin inay garab istaagaan si uu u soo celiyo xukunkaas. qodobka afraad uu sameeyey waxa uu la xiriiray dhammaan wixii ka haray bani umaya, isagoo ku wargelinaya inuu Andalus ka aasaasayo xukunkii bani umaya. markaas ayaa ay daafaha adduunka isaga yimaadeen. markii uu hubsaday cabdiraxmaan daakhil in ay diyaar u tahay inuu galo waddanka Andalus, ayaa uu isku diyaariyey safarkii uu ku geli lahaa Andalus, isagoo aan ciidan iyo askartoona wadan ayaa uu galay, waxaana soo dhoweeyey rafiiqiisii sahanka u ahaa ee Beder. wuxuu tegey magaalada Qurduba. markaas Andalus waxaa ka talinaya nin la yidhaahdo Yuusuf cabdiraxmaan Fihri oo xoogag badan ay ka soo horjeedaan, wuxuuna ku talagalay inuu ururiyo dhammaan dadkii ka soo horjeeday xukunka Yuusuf, islamarkaana jeclaa xukunkii bani umaya ee cabaasiyiintu ay rideen. diyaargarow weyn kadib waxaa dagaal isaga hor yimid 2 ciidan oo ay kala hogaaminayaan cabdiraxmaan daakhil iyo Yuusuf cabdiraxmaan Fihri. dagaal dheer kadib waxa ay guushu raacday cabdiraxmaan daakhil. maalintaas wixii ka dambeeyey xukunkii Andalus waxa uu gacantiisa ku soo wareegay cabdiraxmaan daakhil, halkaasna waxa uu ka aasaasay dowlad aad u xoog badan oo ay ka talinayaan bani umaya. cabdiraxmaan daakhil waxa uu ahaa nin aqoon badan, deeqsi ah, dhaqan wanaag lagu yaqaan, gabayaa ah, hoggaan fiican ah. cabdiraxmaan daakhil cabdiraxmaankii soo galay, saqru Quraysh, gorgorkii reer Quraysh, mid kasta oo ka mid a labadaas naanaysood sabab ayaa ay ugu baxeen. haddaan soo qaadanno sababtii ay ugu baxday naanaysta cabdiraxmaan daakhil, waxay ahayd isagoo keligii ayaa uu yimid oo uu soo galay waddanka Andalus, markaas ayaa uu yeelay dowlad aad u xoog badan, sidaas ayaana loogu bixiyey cabdiraxmaankii soo galay ama cabdiraxmaan daakhil. naanaysta kale ee saqru Quraysh ama gorgorkii Quraysheed waxa uu bixiyey amiirkii la odhan jiray abujacfar almansuur. isagoo maalin fadhiya magaalada Baqdaad ayaa uu weydiiyey raggii la fadhiyey su'aashan, ma taqaanin gorgorka Quraysheed? markaas ayaa ay ku dhaheen waa adiga. waxaanuu yidhi maya, aniga ma aha. niman badan ayaa ay sheegeen, nin kastana waxa uu ku dhahayay maaha ninkaas. markaas ayaa uu sheegay oo uu yidhi waa cabdiraxmaan bin mucaawiya bin cabdilmelik. waddan uusan weligii tegin ayaa inta uu tegey ayaa uu ka aasaasay dowlad xoog badan. intaas haddii aan kaga nimaadno qisada iyo taariikhda cabdiraxmaan daakhil, maxaa aan ka baran karnaa qisada ninkan? waxa ugu horreeya ama ugu muhiimsan ayaa ah himada sare iyo inuu qofku yeesho hami iyo hiigsi fog. nebiguna naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxa uu xadiisku yidhi, ina allaha tacaala yuxibu macaaliya alumuur wa ashraafaha wa yukrihu safsaafaha. xadiiskani waxa uu inoo sheegaya ama uu inoo caddaynaya inuu alla jecel yahay arrimaha kuwooda sarreeya ee sharafta badan, uuna necab yahay kuwooda hoose ee liita. qofka hanka sare laysa oo ka amba qaadaya xadiiskan ayaa uu jecel yahay arrimaha kuwooda sarreeya, waxa aanu necab yahay kuwooda hooseeya ee liita. markaad aragto dhalinyaro wakhtigooda ku luminaya waxyaalo aan faa'iido badan ugu jirin, xilliga habeenku dheeraadana waxay wakhtigooda ku luminayaan fadhi ku dirir iyo sheeko malaayacniya iyo in TV-ga ay ka daawadaan barnaamijyo aan faa'iido ugu jirin, maalintiina ay ku lumiyaan hurdo.
qorshe la'aan, horumar la'aan. Taasina maaha dhaqan farax gelinaya qof kastoo han sare leh. Sheekh Cabdi Sataar Nuweyr ayaa waxa uu warinayaa in nin askari ay soo maray maqaaxi. Markaas ayaa uu arkay 2 nin oo laadhuu ciyaaraya. Markaas ayaa uu ku yidhi, goormaad bilowdeen ciyaartan? Waxaanay ku dhaheen 4tii galabnimo. Markaas ayaa uu ku yidhi, ilaa goorma ayaad wadaysaan ciyaartan? Waxaanay ku dhaheen ilaa 9 fiidnimo. Markaas ayaa uu ku yidhi, maxaad ka shaqaysaan? Waxaanay dhaheen macallimiin ayaan nahay. Markaas ayaa uu ul qaatay oo ula dhacay kuna yidhi, maydaan shaqo lahayn, maydaan xirfad aad ku shaqaysataan lahayn, waxa aad bulshada u qabataan miyaad weydeen? Haddii aan nolosheenna fiirino, inteebaad arkaysaa dhalinyaro u fadhiya saacado badan cunidda qaadka, daawashada ciyaaraha iyo dhammaan waxyaalaha nafta lagu maaweeliyo. Soo wax laga naxo maahan inay wakhtiga ku lumiyaan dhalinyaradii aan uga fadhinay inay naftooda iyo waddankooda horumariyaan. In xaalkoodii saas noqday. Wassalaamu calaykum.